أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaala waan salaamayaa meelbood joogtiin waqtigu haydin wacnaado. waxaan jeclahay maanta inaan ila wadaago shay ama mowduuc aad iyo aad u muhiima oo faa'iido badan u leh qofka muslimka. mowduucaas ama shaygaan ni sheegay waa shay aan ku liibaanay, runtii aan ku aflaxay in badan. waxa weeye inaad ilaahay la hadashado, la sheekeysatid maalin walba waqti. inaad ilaahay iyo rabbigii ku khalqay aad samaysatid waqti aad kula hadasho ama kula sheekaysato maalin walba. waqti kuma xidhna, xilli kastaad ilaahay hor fadhiisan kartaad la hadli kartaa, shuruudna ma laha. waan ognahay inaan maalin walba ilaahay shan jeer aan salaad tukano oon ilaahay la hadlo, balse tan way ka duwan tahay. marka aad 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo waqtigaaga ka mida maalin walba ama kaba badan aad ilaahay intood meel fadhiisato gacmaha kor u taagto, muraadkaaga oo dhan u sheegato, waxa aad dareemayso culeysyada ku haya, farxadda xataa aad dareemayso in ilaahay wax walba isagoo ka dambeeyo, isaguna kugu marnaystay awoodiisa ay tahay wax walba. culeyska ku haysta inaad weydiisato in ilaahay kaa dulqaado, albaabana kuu furo. wax walba oo dareemaysid farxad, murugo, inaad ilaahay u sheegato, runtii waa shucuur ama dareen aad iyo aad u qaali, aadna u macaan. qofka dhadhamiyuun baa garan kara. haddii adoo murugoonaya ama xaalad ku hayso ama kurba ku hayso aad ilaahay intood hor fadhiisato aad ilaahay weydiisatid inuu kaa dulqaado oo munaajaad samaysid, waxa hubaala adoo yaqiinsan arrinkaa haddii aad samaysid ina ilaahay farash ku bixinayo oo culeyska ilaahay kaa dulqaadayo. waa wax aan sameeyo, waa wax aanan ku liibaanin. nolosha guulo badan baad ka gaaraysaa haddaad arrinkaa samayso oo daily routiinkaagana aad ku darsato maalin walba. sidaad salaada ay daily routiinkaaga kugu tahay iyo cibaadooyinka kala samaynayso iyo noloshaada caadiga, haddii aad maalin walba noqoto qof ilaahay waqti u samaysta oo la hadlo, waxa weeye waa amazing, waa dareen cajiiba. nabiga markii la weydiiyay alayhi salaatu wasalaam, jibriil weydiiyey ma wal ihsaan, wuxuu yidhi an tacbud allaha kaannaka taraa fa in lam takun taraa fa innahu yaraak. ihsaanku waa martabada ugu weyn oo qofka muslimka gaadho. waa inaad ilaahay u caabudid, inaad arkaysid sidoo kale. haddaanad arkayn adu isaga ayaa ku arkaya. ilaahay waxaad ula hadlaysaa inaad arkaysid. waa martabada ugu sarreyso qofka muslimkii gaadho. waa amazing, waa shucuur cajiiba. aniga ayaa ka markhaatiya, aniga ayaa ku dhaqma. guulo badan iyo wanaag badanna waan ka gaaray nolosha ku dhaqanka arrinkaas. ilaahay sifaadkiisa ayaad kula hadlaysaa, magaacdiisa, sifaadkiisa ayaad kula hadlaysaa. intaynad bilaamin waxaad u baahantahay inaad ilaahay u sheegtid yaa raxmaan, yaa raxiim, yaa waduud, yaa dal carsh almajiid, yaa dal malakuut. asmaa'diisa iyo sifaadkiisa العلا markaad ku bilowdo hadalkaaga ayaad kadibna waxaad u baahantahay inaad ilaahay u sheegataad u sheeganaysaa. ilaahay waad la hadlaysaa maalin walba. waa hubaal inaad liibaan ka gaaraysid adduun iyo aakhiraba. arrinkaasi waa arrin aad iyo aad runtii u qiimo badan una muhiima. qofkii ku dhaqma unbaana garanaya macaankiisa iyo faa'iidadiisa. waxaan jeclaan lahaa inaad ka faa'iidaysataan arrinka insha allah. maadaama ramadaan lagu jirana ay bil khayr badan ay tahayna aad arrinkaa ka faa'iidaysataan. aan maalin walba daily routiinkiina aad ku darsatiin. waa bishii ducada la aqbalayay, waa bishii fadliga badneed xagga ilaahay. waa khayru min 1000 shahr siduu ilaahay noo sheegay. waa bishii qur-aanka la soo dejiyey. waa bishii guulaha badan muslimiintu gaadheen. waa bishii futuuxaadka inta ugu badan la sameeyey. waa bil khayr badan. aan ka faa'iidaysano insha allah. aanan arrinkaa ku dhaqano haddii ilaahay idhaahdo. intaasaan jeclay maanta inaan ila wadaago. waa mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.